السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتك وحدان channel كدية channel ما أنتو حان إدين وضا أب أما برامج آد وفي عن برامج كاس أو برامج آد كبرنا يسيد قرآن كريم كأخرس كيسا آد كأخرس سنة يسيد قرآن كريم كأخرس كلية ما أهي ولي بوحولي برامج كاني دقيسي قرافة بدن أو كلا دوان أيا كوشرته oo ka doontid aad geysanaysid oo aad ka dhageysanaysid quraanka kariimka ah adigoo isla markaa waxa weeye kitaabkii musxafkii ka daawanaya wuxuu kale oo leeyahay tafsiirka ayuu leeyahay oo aayadaad u baahatid uu kugu fasirayo luqado kala duwan oo ay ka mid tahay luqadeena Soomaaliga luqada Carabiga iyo luqado fara badan oo kala duwan ayaa waxa weeye abkan ku dhex jiro aad ka soo dejisanaysaa dhexdiisa haddaba haddii aan u guda galno abka waxaynu ka helaynaa Play Store-ta magaciisana waxaa la yiraahdaa Quran for Android bal haddaba aynu guda galno oo aynu ka fiirino Play Store-ta aynu ka search gareyno waayahay halkan waxaad aragtaa Quran for Android ayaad ku qoraysaa aniga hore baan u sii qortayba adiga laakiin si waad search gareynaysaa Quran for Android intaanaad ku qoraysaa Quran for Android waatan wii soo baxay waan soo dejisanayaa waad aragtaa si automatic ayuu ii geeyay horey baan ula soo degay aniga mar dhawaytaan la soo degay laakiin adiga waad la soo degaysaa waxaad aragtaa in abkan dad badan ay la degeen downloadkiisa fiiri 10 milyan baa la degay review-giisuna waxa weeye 5 star buu ku dhow yahay waa 4.8 halkan maaragtay ayaad kala soo degaysaa iminka aniga uu ii soo degay open baan leeyahay laakiin meesha open ay ku qoran tahay ee adiga install ku soo baxaysaa waad install gareynaysaa waad dejinaysaa markaad dejisidna halkan ayaa uu ku geynayaa open ayaad leedahay halkan uu saan ku geynayaa markuu halkan ku geeyo halkan waxaad ka aragtaa fahrasiyo kala duwan fahraska koowaad waxa ku qoran suuras fahraska xiga waxa ku qoran juz fahraska xigana waxa ku qoran bookmarks hadaba fahraska koowaad hadii aan u soo laabano waa suuradihii quraanka waxaynu ognahay inuu ka kooban yahay 114 suuradood 114kii suuradood ayaa ku qoran suuratul Faatiha ayaa laga bilaabay oo quraanka Faatixada alxamdu ayuu ka bilowdaa waxaa ku xigta suuratul Baqara suuratul Al-Imran ilaa laga gaarayo suuratul An-Nas 114kii waa kuwa fahraska xiga waa jusaskii quraanka waxaynu ognahay inuu ka kooban yahay 30 juz waad aragtaa juskii koowaad oo ka bilowmaya suuratul Faatiha ilaa laga gaarayo juska u dambeeyo oo ka bilowda suuratul Amma suuratul Naba loo yaqaano ama Amma aad u taqaanid haddaba waxaad aragtaa jus walba in uu ka kooban yahay 8 maqro jus kasta wuxuu ka kooban yahay 8 maqro juska koowaad oo ka bilowda suuratul Faatiha maqradiisa koowaad waxay noqonaysaa suuratul Faatiha bilowgeeda bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin bay noqonaysaa maqrada labaad waxay ka bilaabataa in Allah la yastahi maqrada saddexaadna waxay ka bilaabataa atamuruna an-nasa bil bir maqrada afraad waa istisqa Muusa maqrada shanaad afatadmauna maqrada lixaad walaqad jaakum maqrada toddobaadna ma nansakhu maqrada sideedaadna waa ibtala Ibrahima ayaa ay ka bilaabataa halka waxaad aragtaa in juskii uu ku dhamaaday koowaad waxaa loo guda galay jiska labaad oo ka bilowda sayqulu sufahaa'u isna 8 maqra ayuu ka kooban yahay jiska saddexaadna waad aragtaa tilka rusulu ayuu ka bilowdaa 30kii jusba qaabkaas ay u qoran yihiin halkan fahraska u dambeeya waxaad aragtaa bookmark hadaba muxuu yahay bookmark waa meesha marka waxa weeye wixii aad save garaysato oo quraanka ah ay ku soo galayso tusaale ahaan imika waxaan akhrinayayba suuratul Baqara waxaan ku dhex jiray halkan aan marayay bogan muxuu ka bilowdaa
waid qaala rabuka lilmalaa'ikati ayuu ka bilowdaa. halka anigoon baraya ayaa waxa weeye qof isoo wacay ama mashquul ayaan galay. maxaan samaynayaa? waxaan samaynayaa barta aan marayay ayaan haylaad garaynayaa. waan haylaad gareeyey calaamada geesta ah, geesta mataqaanaaye u xigta calaamadahan iisoo baxay globalka iyo tan sheerta iyo tan u dambaysa ee safeta ah ayaan geeska u xigta ayaan click siinayaa. wuu ii safe garaysmayaa. wuu ii safe garaysmay. xaguu igu safe garaysmay? wuxuu igu safe garaysmayaa bookmark ayuu igu safe garaysmayaa. bal bookmarkii aan ku laabto. waxaad aragtaa bookmarka meesha u sarreysa inaad ku aragti weyd qaala rabuka lilmalaa'ikati. iska dhaaf labada qaybood hore. qaybta saddexaad waxaad aragtaa meesha aayah bookmark ay ku qoran tahay. waxaa uu soo horeeya waid qaala rabuka. tan kale ee kasii hooseysaana qaalud culanaa waa mid hore aan horey u safe garaystay. marka tii u dambeysay aan safe garaystay maxay ahayd? waid qaala rabuka ay ahayd. balige waa bartii u dambeysay ee aan marayay markii la isoo wacay. haddaba haddii aan halkaasaa ugu gudbo waxaan u gudbayaa fahrasyadii. saas ayaan kusoo gabagabeeyey. waxaan haddaba u gudbayaa sittinka ayaan u gudbayaa. sittinka xaggaan ka gelayaa? sittinka waxaan ka gelayaa meesha geeska ah ee calaamadaha yaryar ay ku qoran yihiin ayaan ka gelayaa. saddexda calaamadood ee iskor saaran ee geeska u xiga, saddexdaa dhibcood ayaan tegayaa. saddexdaa dhibcood markaan tago waxaan arkaa halkan sittin inay ku qoran tahay. halka u sareysa inay search ku qoran tahay. halka ku xigta go to page inay ku qoran tahay. haddaba bal sida ay u kala horeeyaanba haddaan u kala horeysiiyo searchida bal aan tagaba. searchida maxaan samaynayaa? searchida waxaan samaynayaa aayad kasta oo aan u baahdo ayaan halkan ka search garayn karaa. tusaale ahaan aayaddii u dambeysay ee aan safe garaysto maxay ahayd? waid qaala rabuka. amaba iska dhaaf waid qaala rabuka. tusaale ahaan waxaan rabaa inaan raadiyo الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بهرادنا إياك نعبد وإياك نستعين. هل كان قرأ إياك نعبد وإياك نستعين سمارت ويسو بحيبا إياك نعبد يضع أسريس إياك نعبد وإياك نستعين. مركان إياك كلي قرأ سي أوتوماتيكا أيو صباحي إياك دور إياك با صباحي لكن إياك نعبد با أسريس أنا إياك نعبد بان ربي إن الراديو إياك نعبد با إيسو بحضي كليك بان سينيا. waad aragtaa iyaaka nacbudu ba igeeyey meeshii aan u baahnaa waan helay. taasi waa searchinka. haddaba haddii aan dib ugu laabto saddexdii dhibcood haddaan dib ugu laabto click baan siiyey saddexdii dhibcood. maxaa ku xiga? tan waa last page, waa pageki u dambeeyey aan akhriyo waa kan. ka gudub. tanna maxay tahay? go to the page. pageka aad. pageka aan rabo ayaan aadayaa. sittin baan tegey. go to the page baan tegey. suuratu albaqara ayaan ku qoray albaqara. halkan maxaan ku qorayaa numberkaan rabo? number 30 ayaan idhi. xaggana lagu qoraya miyaa numberkan? sax. halkana numberka ku qoraya 50 ayaan idhi. 50 markaan idhi sax numberka halkana lagu qoraya 50 markaan idhaahdo okay baan leeyahay. waa aayadda 50aad macnaheedu. aayaddii 50aad ayuu saa ii geeyey oo albaqara ah. okay haddaba dib aan u laabto. aan ku laabto saddexdii dhibcood. sittinkaan haddana tegayaa. waxaan soo sharaxay tii u sareysa oo ah searchinka iyo go to the page. bal sittinkana aan tago. sittinkii waa kan waan tegey. sittinka waxa u muhiimsan ee ku jira waxa weeye halkan hoose waxaad ku aragtaa audio manager ayaad aragtaa. bal audio manager oo maxaa tahay? audio manager waxaa ku jira mataqaanaaye quraa fara badan oo kala gedisan codadkoodii ayaa ku jira
oo qur-aanka akhrinaya. marka qaariga aad rabtid ayaad soo dejisanaysaa. iminka aniga waxaan soo dejistay cabdirashiid suufi 5 suuradood oo mataqaanaa qur-aanka ka mid ah ayaan kasoo dejistay. waxaan rabay inaan isagoo dhan soo dejisto, laakiinse dowlad galanti ayuu igu daahiyey. adiga almuhim qaariga aad rabtid ayaad soo dejisanaysaa. tusaale ahaan waxaaban soo dejisanayaa qaariga koowaad muxuu yahay cabdi albaasid mujawad, labadaas araba waa cabdibaasid. ka saddexaad muxuu yahay cabdulmuxsin alqaasim. cabdulmuxsin qaasim baan tegayaa. cabdulmuxsin qaasim marka aan tago, ma waxaad rabtaa inaad suurad usoo dejisatid mise waxaad rabtaa all inaad soo dejisatid? haddaad all rabtid inaad soo dejisatid, calaamada geeska ayaad tegaysaa, kilig baad leedahay, waad sabraysaa inta uu kuu soo degayo oo dhan, waad iska daynaysaa, ma taabanaysid. kilig baan siiyey, wuu ii socdaa, soo ma aragtid? all baa ii socdaa, waqti buu qaadanayaa. marka maadaama uu waqti qaadanayo, waan iska kansalayaa. hal suuro oo ka mid a ayaan rabaa inaan soo dejisto. suuraddii koowaad uuba ii soo dejiyey, waa suurat alfaatixa, tan un baan rabay. albaqaro kalena waad ku dhufan kartaa, albaqaraan baan ku dhufanaya, kilig baan idhi. albaqara xoogay waqti bay yaro qaadanaysaa, way kuu soo degaysaa. alfaatixa oo ii soo degtay ayaa mataqaanaa aan rabaa bal inaan fiiriyo. faatixada oo cabdulmuxsin alqaasima way ii soo degtay, dhowr qaari oo horena way igu jireen, bal aan isla fiirino. waxa weeye faatixadii oo la akhrinayo. waatan faatixadii, waa inaga kor nimid, dib baan u laabanay. bal bisinka ayaynu ka bilaabaynaa. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله. okay, aniga hadda cabdirashiid suufi baa ii soo baxay oo horey igu soo degay, laakiin kii u dambeeyey aan soo dejistay muxuu ahaa cabdulqaasim buu ahaa, soo ma? cabdulqaasim halkan aan ka tegayaa. cabdulqaasim intan aan ka tegayaa. okay, waa kan cabdulqaasim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. okay, inaan ku gooyo ayaan diidanaa isagoo aayadda dhexda marinaya. marka waxa weeye iminka intaas ayuu noo soo akhriyay, inta kalena wuu dhammaystiri doonaa. laakiin halkan haddii aan wax yar ka yara sharaxo, haddii aad rabtid aayadda inaad ku ceshatid, maxaad samayn kartaa? waxaad samayn kartaa meeshan labadan falaarood ay iskor saaran waxaad leedahay tirada aad rabtid ayaad ku qoraysaa. tusaale ahaan 1, halkaas iminka hal mar ku celi bay ka dhigan tahay. bal aan inoo daaro, hal mar ayuu ku celin doonaa. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. okay, hal mar buu ku celiyey. waxaan rabaa inuu 2 jeer igu celiyo ihdina siraada almustaqiimta, amaba 3 jeer buu igu celinayaa. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. okay, bal aan mataqaanaayay inka badan aan ku ceshto. haddii aan rabo inka badan inaan ku ceshto, maxaan samaynayaa? bil arraxmaan raxiim baan tegayaa. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم
الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم okaadi waxaan geynayaa 2 eber camal baan geynayaa 1 2 3 4 ha 3 markaan idhi maxaa ii soo baxay oo 4 noqonaya meesheedii waxaa 2 eber moodid baa ii soo baxay labada eber macnaheedu waxay ka dhigan tahay in badan ayuu ku celcelinayaa iminka bal haddii aan daaro bal aan isla fiirino الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم okay الرحمن الرحيم in badan ayuu ku celcelinayaa maanta oo dhan buu ku celcelinayaa meesha aayadda aad rabtid intaa doontaad ku celcelinaysaa calaamadaas labada calaamadood ee iskor saaran unbaad mataqaanaay ku dhufanaysaa haddaad hal mar rabtid hal mar baad geysanaysaa haddaad 2 jeer rabtid 2 jeer baad geysanaysaa haddaad 3 jeer rabtid 3 jeer ayaad geysanaysaa haddaad ka badan rabtidna calaamadaas ayaad geysanaysaa haddaanad rabin inuusan kuguba celin oo toos kugu wadana calaamadahaas oo dhan midna ma geynaysid waa مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين okay haddaba mataqaanaay kaasi wuxuu ahaa qaarigii hadeerto ee aan rabay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم qoraa kale xitaa waan geysan karaa halkan qoraadii oo dhan ayaa ku jirta kaan rabo ayaan la soo degayaa oo alxamdiya haddii aad mid kale geysatid oo aanad hore usoo degsan waxay kaa rabtaa intay soo degayso inaad sugtid dictor tan ugu dambeysa maxaa ku qoran kan u dambeeya maxaa ku qoran minshawi waa minshawi bal minshawi igu dhufo minshawi alxamdi igu dhufo waan ku dhuftay inta soo degayo download buu leeyahay sababtoo ah hore umaana soo dejisan intuu soo degay waa inaan sugaa oo sabraa waa kaa uu soo degay hadduu bilaabayaa بسم الله الرحمن الرحيم okay halkaas inaad fahanteen ayaan filayaa haddii aan halkaas intaas uga gudbo waxaan filayaa inaan sharxaadeeda xoogay ku dheeraaday waxaan u gudbayaa oo aan ku laabanayaa dib ugu laabanayaa 3 calaamadood ee iskor saaran ayaan tegayaa waan tegay sitting baan haddana kasii tegayaa waxaa sittingka ku dhex jira meel ay ku qoran tahay translate meel ay ku qoran tahay waatan translatedaas ayaan tegayaa waxaa halkan ku jira mataqaanaay tafaasiir fara badan baa ku jirta oo tafsiirka soomaaliga uu ka mid yahay bal ka aan rabo ayaan geysanayaa igu dhufo markaa bal soomaaliga horta igee soomaaliga esta tag waa tan st soomaaliga waa kan soomaaliga ayaan download garaysanayaa wakaa hadda wuu ii socdaa si degdega ayuu ku socdaa uuba iisoo download garayay okay bal mid kalena aan ku darsado si aan xoogay dee soomaaliya keliya uusan igu turjumin mise soomaaliya keliya aan tijaabinayaa bal aan eego aayadda aan rabo tafsiirkeeda tusaalahan alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin baan rabaa haylaad baan saarayaa markaan haylaad saaro waxaan tegayaa meesha globalka calaamadaas khariirada u eg ayaan tegayaa ee calaamada sheerta ku xigta ee dhexda ku jirta ayaan kilig siinayaa kilig markii aan siiyey waxaa ii soo baxday alxamdulilaahi rabbilcaalamiin tafsiirkeeda oo ay wuxuu yidhi alxamdulilaahi rabbilcaalamiin intaas ayuu kugu fasiray oo ah mahad eebba iska leh ee barbaariyaha caalamka ah saas ayuu kugu fasiray haddii aad rabtid tafaasiir kale halkan waad kasii geli kartaa meeshan waad kasii dejisan kartaa tafsiirka aad rabtid laakiinse sittingkeeni aan ku laabano halkaas ayaynu fahmaynaa okay 3 calaamadood dib ugu laabo tafsiir carabiya ayaan rabaa inaan kusoo darsado 3 calaamadood waa ku laabtay sittingka sii tag bal meeshii translate ay ku qornay tag translate waa kan
tafaasiir fara badan baa ku jirta oo qeyb carabi tahay, qeyb luqado kale tahay ayaa ku jira. bal hal tafsiir oo carabi ah, tafaasiirta ugu fiican marka waxaa ka mid ah tafsiirka ibnu kathiir iyo tafsiirka sicdi oo kale, waa tafsiir mukhtasar oo isna fiican. tafsiirka ibnu jariir oo kale wuu fiican yahay, baqawi oo kale wuu fiican yahay. marka bal tafsiir kooban, tafsiir muyasarkaas oo kale baa isaga kooban, waxaa weeye ibnu kathiir oo kale haddaan dhaho waan soo dejinaya waqti buu qaadanaya, bal muyasarkaas aan soo dejisto. tafsiir muyasar waa kan, iisoo deji tafsiir muyasar, wakaa wuu iisoo degay. bal aan fiiriyo aayadda aan rabo. alxamdulilahi rabbilcaalamiin ayaan tijaabada ku wadanaa. haylaad baan saaray. markaan haylaad saaro waxaan tegaya calaamadda gloobalka ah ee khariirada u eg ayaan tegaya, ama khariirada ah. kilig baan siinaya, waan ku dhufanayaa. tafsiirka muyasarka wuu ii fasiray iyo tafsiirka soomaaliga, labadaa tafsiir oo horey igu soo degsana ayuu igu fasiray. muxuu yihi alxamdulilahi rabbilcaalamiin athanaau cala allahi bisifaatihi alatii kuluhaa awsaafu kamaalin ilaa aakhirka tafsiirka. saas ayuu igu fasiray. marka tafaasiirta aan rabo oo dhan ayaan soo dejisanayaa, wuu isukay soo hoos dhigdhigayaa. iminka kii soomaaliga iyo kii muyasarka isukay hoos saaray. kuwa kale aan jeclahayna saas oo kale ayaan ku samaynayaa. ihdina siraad almustaqiim waad aragtaa, bal ihdina siraad almustaqiim na ila fiiri waxa ay ka dhaheen tafsiirkii soomaaliga iyo tafsiirul muyasar. muxuu yihi soomaaliga haddii aan ku bilowna, nagu hanuuni jidka toosan, nagu hanuuni jidka toosan. waa ihdina siraad almustaqiim, waxaa laga wadaa buu yihi nagu hanuuni jidka toosan. tafsiirul muyasarkuna muxuu ku fasiray dalanaa wa arshidnaa wa wafiqnaa ila ariiqi almustaqiim ila aakhiri tafsiir. waxaan filayaa inaad wax badan aad fahanteen. marka aad soo dejistaan abka idinkaa iska fahmaya wixii dheeraada. waxyaabo badan oo mataqaanayay ku jira meesha tan. sittinka ayaan bal tegaynaa. sittinka markii aan tagno, halkan waxaad aragtaa alwadcu alcarabi, arabic mood. haddaad rabti carabi baad ka dhigan kartaa. halkan waxaad kilig baad siinaysaa, sax baad leedahay, tigta ayaad saaraysaa. marka carabi ayuu soo bedelayaa qoraalkan ingiriisiga. carabi ayuu soo kii bedelay. haddaba maanta waxa weeye intaas ayaan sharxaadii kusoo koobaynaa. wixii dheeraada iyo wixii faahfaahina adiga ayaa iska fahmaya, soo dejiso. waxaan filayaa intaas inay nooga filan tahay sharaxaad kooban. aad baan idin salaamaya dhammaantiin. waxaan rajeynaya inaad ka faa'iidaysateen. asxaabtiinana u sheer gareeya si mataqaanay khayrku iyagana u gaadho. aad baan idin salaamaya dhammaantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.